بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oon uga hadli doono dhibaatooyin ka dhacay goobo ka mid ah Soomaaliya khaasatan gobolka Cayn fadlan barnaamijkan si uu u gaaro dadka waxaan idinka codsanaynaa inaad share gareysaan si uu u gaaro daawadayaasha kale oo inoola wadaagaan barnaamijkan waxa sida la socoteen maalmihii la soo dhaafay ka dhacay qulqulatooyin meel ka mid ah Soomaaliya khaasatan gobolka Cayn halkaas oo dadka deegaankaas degan qaybo ka mid ah ay sheegeen in deegaamo ay lahaayeen lagu burburiyey ama lagu waxyeeleeyey marka waxaan kulley barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa haddii ilaahay idmo barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay qulqulatooyin ka dhacay gobolka Cayn oo deegaanadaas dadka degan ka mid ah ay sheegeen in deegaamo ay leeyihiin la burburiyey ama dhibaatooyin loo geystay waxaan ku eegi doonaa bal horta waxa ka dambeeya arrimahan iyo sababaha keenaya saacadan in dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan waxay kale sheegeen ciidamada deegaanadooda burburiyey inay yihiin ciidamada Somaliland ciidamo ka tirsan ciidamada Somaliland arrintaana waxay qusayn doontaa oo maamulka Somaliland inuu dhibaatooyinkaas wax ka qabto marka hore waxaan jeclahay aan dhageysano horta dhibaatooyinkii dhacay odayaasha oo ka warbixinaya mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo degan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo waliba sidoo kale deegaanada ku hareeraysan gaar ahaan beesha Sicid Kul ayaa waxa ay sheegeen in maamulka Somaliland ay ka burburiyeen deegaameed ay ka samaysanayeen magaalada Dandan iyo degmada Woodwood meel baxaysa odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda beesha Sicid Kul oo warbaahinta la hadlay iyagoo rabaaq u diray odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo waliba sidoo kale maamulka Somaliland in ay wax ka qabtaan dhibaatada iyo barakaca loo geystay beesha ayagoona sheegay odayaasha in loo geystay jirdil xarig iyo waliba sidoo kale hanjabaad waxaana ugu horreyntii halka ka hadlay oo ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen afayeenka beesha Sicid Kul Axmed Cali Kol hantideedii iyo maalkeedii lagu qaatay sharafteedii iyo jiritaankeediina lagu xabiray laguna dhibaateeyey beeshan wax beel deegaana ummadda deegaanka ka mid ah weligeedba ku soo dhaqmaysay kana mid ahay dadka deegaanka oo ay tahay goobtii shanaad ee laga kiciyo iyadoo aanay jirin wax sababa oo ay dadka kaga duwan yihiin oo loogu diidayo deegaanka shantaa goobood oo midba wax loo adeegsanayey mid la yidhaahdana waa meel isku dilay iyo mid la yidhaahdana munaasiba macaba shantaa goobood ayaa waxaa ka mid ah meesha la yaqaan qalle meesha la biraha dhaadheer ee horfadhi ka dambaysa oo xataa ragna la kaga dhaawacay maskax boqole raaxa reeble qurac ka dhac ay maanta ugu dambayso oo looga dhigtay hallig waxay u dhowdahay higla ka dhacday oo isku laayay laakiin aan higla ka dhacdayn ahayn waxayna wahayn dadkan oo iyaguba ah dadkii higla ka dhacday wax ku lahaa deegaanka kala ahaa wax ku lahaa oo aan ka duwanay bulshada beesha degan iyadoo ummadda kala iyo beelaha kaleba intaa cid walba ay degaysa meesha rabtay oo aanay jirin cid meesha degtay la yidhi munaasib maaha aysan jirin aanay jirin cid tiknika iyo hub lagu weeray midna aanay jirin laakiin beeshan oo ay tahay beel si gaara loona midabta koorayo loona bartilmaameedsanayo oo gobolka ay ka tirsan yahay uga yimid oo harraa uga yimid midna ma aanay jirin dadkii waxaa loo soo adeegsaday ciidamo ka tirsan qaranka Somaliland oo ka tirsan beesha guuleed garaad hantidoodii lagu qaatay oo guryahoodii lagu burburiyey oo tiknikadii maamulka Somaliland la dhacay oo ay caddayn u tahay inay tahay hubkii iyo rasaasii la dhacay ee dhishikayaasha oo haddaanu nahay anagu odayaasha Sicid Kul aan xil iska saarnay
inaan meesha khasaaro badan intaa ka badan ka dhicin eeqbaa waxaan u diraynaa dhulbaantaha gobolka Cayn waxaanu leenahay waxaanu nahay dadkii deegaanka ahaa ee dalka wax ku lahaa xuquuqda wax ku lahaa waxaan maraynaa meeshii shanaad mid kasta wax kasta loo sababeeya nala ka raray waxaanu maanta rabnaa in la yiraahdo deegaanka xaquuq iyo xaq midna kuma liidin oo waad ku lahaydeen oo idinkama ogolin oo aanu ku tashana meeshii aanu maanta deegaanka uga bixi lahayn ummaddan hantideedii ay isku xidhaysay iyo waxay urursatay hantideedii waa la dhacay dadka ciidamada ah ee shaarka Soomaaliland u gashaday baa dhacay 8 guri baa halkaa laga foqsaday oo qol afka lagu foqsaday waa la jajabiyay jingadoodii iyo looxyadoodii iyo wixii dadka maatada ah qasharada aan hayo ee halkaa ka muuqda waa qasharadii dhishinka waxay turjumaad ka tahay taasi oo cadaynaysaa in aan dad shicibiyey maatada la dagaalamin meeshaan ku waxyeelaynin iyadoo taasi ay ayaan darro tahay hubkii dowladda Somaliland ee la rabay inay dowladda Somaliland dadkii halkaa isku dhex fadhiyay 3 casho ee shacabka ahaa dowlad ahaan iyo caqli ahaan ku dhex gasho inay u adeegsato iyadoo hubkeedii iyo marihii dowladda oo tiraaho anaga idinka kicina idinkuna daba fadhiista laakiin waxyeelada nagaadhay iyo xumaantii ay ku sultanaato beesha gulad garaad iyo magaranaysa dowladda Somaliland saqiiran wa kabiiran dhulbaanta waxba kala qaadqaadina dhammaantii arrintaa inuu u dhan yahay tuhna abay Ingiliis sababtoo ah marka labaad waxaanu nahay beesha Sicid-Kuul oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degta ama ku nool deegaanka Carra Dhulbaante waxaanu erga u nahay kow garaadada dhulbaante iyo waxgaradkiisa iyo culimada iyo ama maamul ha ka tirsanaadeen oo shaar dawlad ha xidhnaadeen ama shacab ha noqdeen bulsho weynta Soomaaliyeedana ku dhex nool waxaanu erga uga nahay dad shacab oo maata oo loo adeegsado hub dawladeed oo qasharadoodii ku waxay yihiin oo aad wada arkaysaan iyaguna isla markaa wax dhibaato oo loo sababsado ama dhibaatada loogu geystaa aysan gelin taa horta ergaanu uga nahay garaadada iyo ummadda waxgaradka dhulbaante haddii erga waxba naloogu qaban waayo tashigeeda ay leedahay waa ka tashanayna haddii lahayd islaamna islaam sidaa ulama dhaqmo culimadii baa arrinteeda ka aamustay garaadadii baa ka aamusay waxgaradkii baa ka aamusay beesha Sicid-Kuul maatadeedii iyo aruurteedii waa kobtii xitaa la isku yiri habaqbaqtiyeen oo xitaa biyihii lagaga jeexjeexay iyo bacihii lagaga jeexjeexay hadalka odayaashii qoraha maray waxaan ku soo gabagabeynayaa oo keli ah dheerayn maaye waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaa aanu degaan helo oo aanu ka helo dalka aanu xuquuqda ku leenahay ama dalka aanu xuquuqda ku leenahay waxgaradkeedu yiraahdaan kuma liidin inaanan kala furfuranayn si arxan la'aan baan looga dhaqmay waxaan ku yiri wax noo kala haray batilka magaala ayaa ku soo baxay ciidankeedii halkaas waxaa laga dhigaaday taageerada caalamka adduunka meel kasta dad islaam jooga iyo hay'adaha caalamka xuquuqda islaamka midooda intaba waan u sheegaya taasana loogu yimid qoryo culus baana laga dirday guryaha iyagu waa la burburiyay biyihii baana laga qoray raashimadii baana laga ciideeyay taasaasaa naloo galay oo sidaas xaaladayadu sidaa weeye haraad baana meesha ugu baktinay hadeer maxamed cali bile magaalada Buuhood waayahay daawadayaal sida aad wada dhageysanayseen waxay ahaayeen odayaasha beel kamida beelaha ku nool gobolka Cayn ama soona Buuhoodle odayaashaas waxay ka cabanayeen in guryahoodii la burburiyay biyo barkadihii laga duugay ama bacyaashii wixii ay maaragtay ay wax ku kaydsanayeen oo laga baabiyay haddaba laba walxaad ayay meeshaan ka sheegeen in midda koowaad ay tahay in ciidamada Somaliland oo diriska Somaliland wata ay arrintaa ku sameeyeen midda kale inay biyo la'aan iyo raashin la'aan iyo matqana hooy la'aan intaba yihiin midda saddexaad inaanay deegaan lahayn oo inay ilaa ay deegaan ka yaan loo ogolayn inay deegaan samaystaan haddana waa maxay sababta keenaysa intaas oo dhibaato inay ku dhacdo dad Soomaaliyeed
haddaba waxaad ra'yigaaga uga dhiiban kartaa qadka telefoonka oo meesha telefoonka ku qoran ayaad ra'yigaaga uga dhiiban kartaa waxaan jeclaan lahaa shakhsiyan inaan baaq u diro dadka cuqaasha waxgaradka deegaanadaas ku sugan in dadka dhibaatada tabanaya ee deegaankaas ka soo jeeda in dhibaatadooda la xaliyo haddii ay tahay somaliland oo la sheegay ciidamadooda inay ku lug leeyihiin iyo hadday tahay cuqaasha iyo dadka deegaanadaas ka soo jeeda intaba inay qayb ka qaataan sidii arrintaas xal looga gaari lahaa oo dadka dhibaatada tabanaya dhibaatadooda loo xalin lahaa waxyaabaha aniga aad maaragtay iiga yaabay waxay tahay inay beeshaasu sheegeen inaysan deegaan iyagu ay leeyihiin qaas u leeyihiin aysan jirin meel kasta oo ay degaan ama ay isku dayaan inay wax ka samaystaanna in laga barakiciyo ilaa 5 meeloodna laga soo barakiciyey middan ugu dambaysay ay tahay tii shanaad 4 meelood oo hore looga soo barakiciyey waxa warbixintooda ka mid ahayd inay jireen dad ay meesha isku hor fadhiyay oo shacab ah oo deegaankaasi muran ka taagnaa laakiin halkaa waxay sheegeen in iyaga guryahoodii ciidamadii dowladda somaliland ay burburiyeen oo shaarka somaliland watay ay burburiyeen halkii ay dhibaatada taagan ay dhexdhexaad uga noqon lahaayeen ama wax uga qaban lahaayeen si dhexdhexaada haddaba waxaa nasiib darro ah in 2020 dad Soomaaliyeed ay sheegtaan ama ay tabtaan in la barakicinayo ama loo awood sheeganayo ama la dhibaataynayo intaasoo sano oo Soomaaliya dhibaato iyo horumar la'aan iyo isjijiid ay soo martay marka kolley wax sax ma aha in dad Soomaaliyeed deegaanadoodii iyo guryahoodii iyo barkadahoodii iyo noloshoodii la baabi'iyo ayadoon wax bedelkeeda arrintaasi aysan jirin anigu xogta dhabta ah oo ku salaysan arrintan ma hayo laakiin waxaan maqlaynaa in aysan beeshani deegaan aanay lahayn ay yihiin dadka meesha degan meesha isku dayaan inay deegaan ka samaystaanna lagu sameeyo burburin iyo barakicin arrintaasuna ma aha arrin ka turjumaysa Soomaalinimada iyo wada noolaanshaha ummadan iyo dhaqanka Soomaaliya midna ka turjumaysa haddaba maadaama ay tahay arrintaanu arrin soo noqnoqotay sida la sheegay ay dhahdo 5 mar dhacday waa in xal laga gaaraa oo loo helaa xal dhibaatadaas looga hortago ama wax looga qabto sax ma aha in dad dan oo meel degan biyo la'aan iyo hooy la'aan lagaga tago laga burburiyo iyadoon bedelkeeda aanay jirin arrintaas arrin sax ma aha arrin mataqaanaa Soomaalinimada iyo mataqaanaa wada noolaanshaha iyo wada dhalashada ka turjumaysana ma aha waxaan ugu baaqi lahayn dadka ay qusayso inay arrintaa wax ka qabtaan dadkaana hantida ka maqan iyo hantida laga burburiyey iyo deegaan la'aanta ay ka cabanayaan in wax laga qabto dadkani ma aha dad deegaanka hadda soo degay ma aha dad roob raac ku yimid ma aha dad ku soo qaxay waa dad asal ahaan ka soo jeeda deegaanka waxay xaq u leeyihiin sida dadka kale ee halkaa ku nool ay u nool yihiin ee iyaguna u noolaadaan taasuna waa waajib saaran dadka deegaanka ah waa laga soo gudbay xilligii Soomaalidu ay isu sheegan jirtay anaa kaa tira badan iyo anaa kaa xoog badan waa in caqligu shaqeeyaa waxa la joogaa 2020 lama joogo waqti barakicin iyo laga iyo isu xoog sheegasho la muujiyo ama ay u muuqato waxyaabaha dhacay inay yihiin runtii dadka halkaa degan ma ahayn dad lagu yaqaano dhaqamadan hadda aan maaragtay iyo cabashooyinkan hadda soo yeeraya iyo wax lamida waxaan rajaynayaa in arrintaas wax laga qabto oo dadka deegaanka degan wax ka qabtaan oo cuqaasha iyo culummada iyo maamulka Somaliland dawladda Somaliland intaba ay wax ka qabtaan oo intaba cabashadu saameynayso waxay ceeb ku tahay ummadda Soomaaliyeed in intaasoo mar hal beel la barakiciyo oo ayaga dhaqankoodii iyo waxgaradkoodii iyo aqoonyahankoodii ay la taagan yihiin tay sheegayaan intii meelooda laga soo barakiciyo waxaana hadalladooda ka mid ahaa ha naloo sheego haddaan deegaanka naloo ogolayn inaan wax ka degnoon uga noolaano aan abkeen iyo awoyaasha ka soo gaarnay sidaan uga bixi lahayn ama aan uga tashan lahayn
aan ka tashanne haddii kale hana laka dulqaada dhibaatada nala ku hayo arrintaas oo ah cabasho meeshii ugu dambaysay war haddaadan waxba ii ogolayn ii sheeg waxba kuma ogoli haddaadan ogolayn inaad kula noolaado ii sheeg ilama noolaan kartid si aan kaaga tashado in u ogaado inaadan waxba nolol ii ogolan iyo deegaan toona cabasho intaa ka dambaysaana ma jirto waxay ila tahay arrintaas waa arrin miidiya taalla waa arrin maalmahan oo dhan taagnayd waa arrin idaacadaha dhan taalla arrin qarsoonna maaha waxaa la soo bandhigay dhulkii la burburiyey waxaa la soo bandhigay barakadihii la duugay waxaa la soo bandhigay risaastii lagu riday oo shilkayaasha iyo sugaga ma aha arrin qarsoon maaha arrin laga gilgila karana maaha arrin la inkiri karana maaha waa arrin muuqata oo bannaanka taa laakiin sabab maxaa kalifaya waktigan waay sababtan ay u dhacaysaa waa maxay arrimahan waxay iska daba dhacayeen 4 bilood la soo dhaafay in la burburiyo barkado iyo in deegaano la burburiyo marka sabab kolley aan dad badan ay garan karaan ma aha waxaan marka kolley isleeyahay caqligu waa shaqayn doonaa ummadda Soomaaliyeed ee halkaa ku noolna waxgaradkeeda iyo garaadkeeda iyo wacyigeedu uu shaqayn doonaa dhibaatooyinkaasna waxbaa laga qaban doonaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay hadda in dadka barakacay biyo iyo waxay ku noolaadaan intaba lala gaaro sababtoo ah qofku haddii aanu biyo haysan ma noolaan karo biyuhu waa nolosha aasaasiga ay ka mid yihiin waxaa ka mid a in aysan haysanin biyo sida ay sheegeenna ay ba-oon u dhimanayaan oo ay dhibaato haysato waxaan anigu abuurayana ma aha waa waxa miidiyaha yaalla waa waxa idaacaduhu soo tabiyeen waxaan markaa ugu baaqi lahaa cid kastoo ay qusayso hadday tahay gobolka Cayn iyo dhaqankooda iyo garaadadooda iyo sanaadiintooda iyo hadday tahay maamulka Somaliland oo la sheegay inay ciidamada burburka iyo geystay iyo burburinta geystay inay ahaayeen ciidamo maamulku uu leeyahay waa sida odayaashu dhaqanka u dhigeen hadal anigu aan sheegay ma aha in arrintaa wax laga qabto dadkana barakaco ku dhacayna la gaarsiiyo hadday tahay maamulka Somaliland caawimaad iyo biyo iyo nolol in la gaarsiiyo odayaasha dhaqankuna ay ka qayb qaataan sidii dhibaatadaas wax looga qaban lahaa waxaa nasiib darro ah in beelaha ka mid a maanta ay codsadaan beelihii kale ay la noolaayeen ay la deganaayeen ay ka codsadaan inay beelaha kale ka doonayaan haddaanay u ogolayn inay noolaadaan inay u sheegaan inaanay la noolaan karin waa wax intii dagaaladu jireen iyo Soomaaliya ay dhibaatadu ka jirtay aan hore u dhicin waa la isdagaali jiray laakiin in guryo la iska burburiyo deegaamo la iska burburiyo oo maaragtay dad meesha looga tiro badan yahay sidaa loola dhaqmo ma ahayn wax aan hore u soo aragnay waxaan rajaynayaa in arrintaas xal laga gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan kolley waa dhibaato dadkaas soo gaartay noloshoodii iyo maalin jooggoodii iyo wax kasta iyo xataa deegaan ahaan iyo sumcad ahaanba aad u liita inay kor taagnaadaan barkado la dumiyey iyo carshaan la burburiyey inay kor taagnaadaan oo ay yiraahdaan waxaan ugu baaba'aynaa biyo la'aan meeshan waana markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaadna ma aha waa markii shanaad waxaan marka ugu baaqi lahaa kolley shakhsiyan iyo intii wax garanayso oo dhan in arrintaa wax laga qabto laga hortago dadkaana dhibaatada haysata gurmad loo sameeyo ciddii ay qusayso oo dhanna ay gurmadkaas ay sameeyaan oo aan dhibaatadaas lagu fiirsanin kolley barnaamijkayga caawa wuxuu ahaa baaq-un iyo in dhibaatada maaragtay wax laga qabto waxaan rajaynaynaa in arrintaa wax laga qabto dadka waxgaradkaanuna ay arrintaa ay wax ka yiraahdaan dadkaana deegaanadoodii iyo hantida ka maqan iyo dhibaatada soo gaartayba xal laga gaaro oo caqliga iyo islaamnimada iyo wada noolaashada
ay shaqayso iyo derisnimaduba ay shaqayso intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkayga caawa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu